أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. السلام عليكم صاحب بيال وعن وناكسن ميل والبا دوني دعاليدad ka joogtaan maanta waxaynu ka sheekaysanaynaa nin la yiraahdo aqalka Carabeed daahiyat al-Arab nin musiibo ah qorsheynta aqliga iyo maskaxeynta iyo in hawsha la odorsay siyaasadda aan lagu gaarin isagu waa safiirka Quraysh ay u dirsan jirtay wadamada kale marka la aadayo waa nin intuu la yaabay amiirkii muuminiinta Umar ibn Khattab oo yiri ninkan uma haboono inuu dhulka korkiisa ku socdo ilaa inuu amiir yahay mooyaan oo in uu xil sida mooyee sidii qof caadi inuu u socdo uma haboono ninka hadaba daawada ninkaynu maanta ka hadlayno waa nin weyn waa nin ka furtay wadanka loo yaqaan maanta Masar kulli waxaan u maleynayaa inta hadii aan sheegay kadib inaad garanayso waa wiil Carabeed waa wiil Qurashiya waa wiil intii uu islaamka nacbaa in badan la dagaalamay islaamka aqligiisa iyo maskaxdiisa lagu yaqaano dhan isugu geeyay sidii aanay ku meel mari lahayn fariintan Ilaahiga laakiin marka uu islaamay kadib ka mid noqday tiirarka ugu waaweyn meel mariyay dacwada Ilaahiga mid kamid ah quwadihii ugu waaweynaa dunida maalinta ka jirana ka qayb qaatay kana mid ahaa raggii afka ciid u daray oo dawladooda ka takhalusay hadaba waxaan u maleynayaa ninkan ka sheekeynayo inaad fahantay waa Amr ibn al-Aas Amr ibn al-Aas abihi waa Aas ibn Wa'il as-Sahmi waa Qurashi wala reer Bani Sahmi qabiil kasto qabaa'ilka Quraysh kamidii waxa uu caan ku ahaa waxyaabo gooniya oo qabaa'ilka kale Quraysh uu gooni kale yahay Bani Makhzum oo kale waad ogtihiin arrimaha dagaalka ay khaas la ahaayeen oo cid dagaal marka la yiraahdo hogaamintiisa howlahaas Quraysh ayada ay daba fadhiisan jirtay reer Bani Sahmi waxay caan ku ahaayeen sharta iyo khayrka inay kala xukumaan hadii shar iyo khayr in la kala xukumo loo baahdo Aas ibn Wa'il oo Amr ibn Aas abihi ah ayaa loo daba fadhiisan jiray musiibo ayuu ahaa odagaas hadaba daawada sheekada Amr ibn Aas aad bay u dheertahay laakiin waxaan doonayaa inaan dhowr qodob aan kugu soo koobo si aad u aragto ninkan cabqariyadiisa aqliyadeed oo aan caadi ahayn waxa la yiraahdaa duhaatul Arab arba'a afar weeye duhaada ama cuqalada Carabeed afar ayaa lagu soo koobaa waa ninka la yiraahdo Amr ibn Aas iyo Muawiyah ibn Abi Sufyan iyo ninka زياد بن أبيه ينكل هذا مغيرة بن شعبة يعني أفر تاسقف محيئها يعني عربت دحديدا دad lagu yaqaano daahiye wax la daahigu waa ninka aqligiisu aqli dhaafay arin kasta la dhaqaajin waaye marka loo diro asagu kala furfura meesha uu wanaagsan ka bixiyo ayaa la yiraahdaa daahi marka Amr ibn Aas wuxuu ahaa nin noocaas oo nin hadii hawl loo diro waxa weeye isku qasan oo aan la maarin la hadii loo diro midka ka dhaxbaxa ayuu ahaa howsha ay isaga hagaajiyo hadaba daawadayaal Amr ibn Aas waxa uu ahaa safiirkii Quraysh ee ay u dirin jirtay wadanka la yiraahdo Xabasha dhulka la yiraahdo Xabasha boqortooyadii Xabasha safiirka ay Quraysh u dirto ayaa uu ahaa waxana uu aftahankeeda ama afayeenkeeda hadaba daawadayaal Quraysh xilligii muslimiintii ay hijroodeen oo ardul Xabasha nabigu yiri u hijrooda oo halka waxa jooga boqor aan agtiisa lagu dulmin ninka la dhihi jiray Najaashi halka markay muslimiinta ay aadeen dhowr iyo 80 saxaaba ay halka u hijroodeen ayagoo ka cararaya ciqaabtii iyo dhibaatadii ay Quraysh ku haysay ayagoo diintooda la cararaya waa kuwii halka aaday dhowr iyo 80 saxaaba Amr ibn Aas iyo ninka la yiraahdo Amaar ibn Waliid ayaa Khalid Waliid la dhashay ayaa Quraysh u dirtay Najaashi si ay ugu qalciyaan inuu soo celiyo nimanka halka soo aaday ee diintooda la cararay saxaabada ah Amr ibn Aas iyo Amaar ibn Waliid waxa ay kulmiyeen waxa la wixii hadaayad ay helayeen oo uu jeclaa ninka la yiraahdo Najaashi dadna way qaadeen waxana ay aadeen halka iyo Najaashi waa meesha hadda maanta dhulkan maanta loo yaqaan Ethiopia ayaa uu xukumaa nimanka meesha ka tagayaan waa Makka marka badda la marayahay waa Bahrul Ahmar badda loo yaqaan badda cas ayaa la marayaa oo halka maanta Eritrea ku taalo ayay ka soo degayaan casab ama musawac meelahaas ayay ka soo degayaan marka doontii markii la soo raacay ayaa ninkan la yiraahdo Amaar ibn Waliid Khalid ibn Waliid la dhashay Waliid Muqir uu dhalay wuxuu ahaa nin aad u qurux badan naag kasto aragtana ay jeclaanayso ayuu ahaa wiil dheer oo quruxsan buu ahaa hadaba daawadayaal doontii markii la soo wada raacay ayaa ninkii Amaar ibn Waliid ahaa waa uu cabay khamra ayuu cabay deedna waa u sarqaamay nin sarqaasan marka maxaad ku taqaanaa waa kii awaan dhowdaan lahaa nin sarqaamay waa lagu yaqaan inuu wareeray ninka asaga ahay baashi si fiican bay u dhaxgashay deedna ninkii saaxiibkiisa ahaa isla wada socdeen Amr ibn Aas ahaa jaariyad ama goor oo lahaa oo jaariyad xaas ahayd ayaa ku keekeen deedna asoo cabsan buu inta agta ka soo istaago oo yiraaye inay maxaad leedahay deedna dana wuxuu arkay Amr ibn Aas oo meeshii taagan oo arkayo fiirinaya markaas uu wallahi de inantani way rabtaa wiilka quruxda badan baana way jeceshahay oo cabsaya oo ka dhacsan wuxuu yiri way jeceshahay laakiin ninkeedii baa meesha taagan oo asaga ayay ka baqaysaa sida daradeed ayay ugu dhiiranaynin inay ii jawaabto mooyee gabar hooyo dhashaaniga waligeed ma yaba ima oran marka inta uu yiri Amr ibn Aas uma jawaabin shibuu ka yiri ilaa waa nin sarqaasan uu arkayay kadibna Amr hawshiisa iska qabsaday laakiin ninkani gabadhan kama sabrin waxana uu diyaariyay qorshe uu leeyahay waa inaan ka takhalusaa Amr ibn Aas si aan jaariyada iyo gabadhan quruxda badan u wato aan hawsha uga qabsado deedna saaxiibkiis Amr ibn Aas oo doonta qarkeeda taagan ayaa uu indhaha ku dhuftay deedna waa soo dhaqaaqay Amr ibn Aas oo iska jireynin ayuu jagsiiyay sida ayuuna badda ugu riday Amr ibn Aas wuxuu isarkay mar qora soo badweynti dhex taagan oo biyo ku dhex jira ayuu isarkay laakiin Amaar wuxuu ogeyn Amr ibn Aas inuu yahay nin khabiir ah oo dabaasha ku dheereen deedna waa soo dabaashay xarkii doonta ayaa uu qabsaday mar kale ayaa uu dib u soo fuulay doonti ninka Amaaraha
markaa hoosh ayaa ku adkaatay waxaan u yiri wallahi orniyo hadaan garanayo inaad dabaasha taqaano wallahi niyo kuma tuureen badda laakiin niyo waad ii dhakatay waad ii dhuumatay niyo waa iska aamusay Camr ibn Caas maadaama uu nin aad u caqli badan oo musiibaha daahiya radu ficli ma uusan samaynin waa uu iska aamus wala soo wada dhaqaaqay markii la yimid Najaashi ayaa Camr ibn Caas waxa uu qoray fariin aabihii Caas ibn Waa'il oo maka joogay uu qoray uu leeyahay iga biri noqo nimanka la yiraahdo reer Bani Makhzum u tag reer Bani al-Muqira oo Camaar ka soo jeeday birin iga noqo wax kasto aan sameeyo yaa lagu qabsanin wax weyn baan soo wada yaan lagu qabsanin waxaad ku tiraahdaa nimanka Camr ibn Caas biri baan ka ahay hadii la dilo iyo hadii asagu wax dilaba biri baan ka ahay mana igu iman kartaan fariintii waxay soo gaartay Caas ibn Waa'il as-Sahmi deedna waa akhriyay kadibna reer Bani al-Muqira ayuu u tagay reer Bani Makhzum wuxuu ku yiri waad ogtiin Camaar iyo Camr ibn Caas waa ay wada safreen nimanka ayagana waa niman musiiba niman yahow waxaad ogaanaysaan inaan biri ka ahay oo waxa weeye Camr ibn Caas wixii ku dhaco aan cidna u qabsanaynin hadii wax geystana leema qabsan karo waan khalci baa la yiraahdaa marka ninka oo waxa weeye laga yaabo oo dhibaatadiisu ay badato carabtu caam bay ku ahayd inay yiraahdaan ninka asaga ah hadaynuna reehebel ninka asaga waanu ka biri baanu ka nahay waxa la wuxuu geysto nalooguma iman karo hadii la dilo ciidan u raacanayna ma jirto ninka asaga biri baan ka noqonay ogaada inay yiraahdaan carabtu caam bay u ahayd sadaradeed Camr ibn Caas aabihiis Caas ibn Waa'il biri buu ka noqday Camr ibn Caas waxana uu yiri shaqo kuma lihi reer Bani Makhzum ogaada dadna reer Bani Makhzum waxay yiraahdeen waraade ma Camaarad kaga baqaysan ninka leeyahay Camr ibn Caas markaas uu adinka ka baqayo anigu wiilkay u baqamay adinka wiilkiina u baqayo ayana waxay yiraahdeen annaguna wiilkeena u baqamayna annaguna biri baan ka nahay Camaaro deedna labadii ninba labadii qabiil biri bay ka noqdeen taabacneed waxa weeye labadan mid kamid hadii uu dhinto kii dhinta iyo kii soo haraba labada mid kii wax dilina waxba laga marrabo kii dhintana dhiigis cid loo raacanaya ma jirto labadii ninba halkaas la isku day waa Ethiopia la wada jooga iyo xaqii boqortooyadii Najaashi deedna ninka Camaar ahaa Camr ibn Caas baa wuxuu u daadiyay shabaq buu u daadiyay waana uu ku dhacay ninkani ogow nimanka muhiimadda ay u socdaan waa nimankii Najaashi inay la hadlaan kuna qanciyaan inuu celiyo nimankii muhaajiriinta ah ee rasuulka ka yimid halkan Ethiopia joog deedna daawadayaal Camr ibn Caas baa Camaar wuxuu ku yiri war Camaarow ninkan arrin weyn baan ka rabnaa inuu nagu adkeeyaan laga yaabaa ma dumarkiisa qayb kamid intaad u gasho maad la hadisid kuna qancisid inay arrinta u soconno boqorka uu naga aqbalo maad ku qancisid deedna waa soo baxay waxa uu galay gurigii Najaashi ayaa waxa galay ninka Camaar ah Camr ibn Caas waa intuu raadinay boqorka waa soo orday Najaashi u yimid wuxuu yiri mid in adeerkii oo la socdo waalan oo dumarka ku waalan ayaan ka baqayaa inuu ceebeeyo gurigaagii ayaanu galay islaantaadii buu saacada la taagay Najaashi ciidankiisa buu soo diray gurigii ayaaba loogu yimid oo islaantii la taagan ninka Camaar ah Najaashi waa u xanaaqay deedna waa la qabtay xabsiga la dhigay waa la garaacay cuquubo adagna waa la marsiyay wuxuu amar ku bixiyay ninkii Najaashi ah in la qaado isaga dhanba meel bahgooya oo cidi aan joogin wax raashiina iyo wax biyo aan lahayn biyo baad meel aan lahayn in lagu tuuro ayaa uu ku xukumay ninkii Najaashi ah Camaar ibn al-Walid deedna waa ay qaadeen ciidankiisii saxaraha ayaanay gooyin waxa la sheegay inay geeyeen meel jasiira inay geeyeen ayaa la sheegaa oo waxba aan lahayn wax raashiinana iyo wax zaada toonana ma aanay siino soo kaligiis ay barta ku tuureen dawadayaal sidaa ayaa ninkii Camaar ibn al-Walid ku halaagsamay qorshihii uu dejiyay Camr ibn Caas ayaana sidaa noqday asoo aan dilin oo gacantiisa ku dilin ayuu hadana ka takhalusay ninkii xaaskiisa damcay ninka Camr ibn Caas marka nin noocaas oo musiiba ayaa uu ahaa hadaba dawadayaal Camr ibn Caas wuxuu ka qayb galay dhammaan wax alla wixii cadaawo Quraysh ay u geysanaysay muslimiinta dagaaladii ay galeen oo idilna Uhud iyo wixii ka dambeeyay iyo wixii ka horeeyay intaba uu ka qayb galay cadaawadii nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku jiray dadkii ka qayb qaatay maal iyo nafba ku bixiyay ayuu kamid ahaa Camr ibn Caas ilaa laga soo gaaray dagaalkii Ahzaab markii uu dhamaaday wixii ka dambeeyay ayaa Camr ibn Caas waxa uu ka daalay la dagaalanka muslimiinta Quraysh ugaasideedii qayb kamid ayaa uu isugu yeeray waxa uu yeeray niman waxaan arkaa inuu Muhammad arrintiisu ay sareynayso marba marka dambeysana ay si faafayso waxbana aanan ka qaban karin hadaba anu waxaan arkaa buu yiri inaan aado meesha la yiraahdo Najaashi halka la yiraahdo Najaashi inaan aado ayaan arkaa hadii uu asagu guuleysto inaan Najaashi hoos joogo ayaan ka jeclaa inaan Muhammad hoos joogo hadii reer tolkay ay guuleystaan oo Quraysh ay guuleysatana anigu dadka qof la yaqaan baan ahayo Camr ibn Caas baan ahay mar walba sida ayaa go'aanka ayaa u gaaray oo sidaas ayaana u sheegay qayb kamid ah ugaasidii Quraysh Camr ibn Caas waa u baxay waxaana u aaday Najaashi oo saaxiibkiisa ahaa waxyaabo uu jeclaana hadiyad ahaan buu ugu sii qaaday deedna Najaashi markii uu saa ugu galay ayaa waxa uu arkay nin uu yaqaano garanayo oo ka soo baxayo Najaashi agtiisa ninkani waa nin weyn oo muslimiinta agteeda ku weyn oo saxaabi ah oo reer Badr waxa la yiraahdaa Camr ibn Umayyah Tamari baa la yiraahdaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa fariin ugu dhiibay ninka la yiraahdo Najaashi sanadkii 6aad ee waxa weeye hijrada markii caam rusul sanadkii nabiga sallallahu alayhi wasallam rususha faraha badan oo u diray boqoradii adduunka oo dhan ayaa Camr ibn Umayyah Tamari waxa uu dhiibay risaalo Najaashi bana loogu dhiibay Camr ibn Umayyah oo risaaladii gutay oo Najaashi ka soo baxaya iyo Camr ibn Caas oo Najaashi u sii galaya ayaa jidkiisa ugu horeeyay deedna Camr oo sii socday Najaashi buu salaamay waa uu sujuuday kadibna waxa uu ku yiri boqorow waa hadiidan ku wadaa waa la ismarxabeeyay waa saaxiibay hore u ahaayeen dhowr mar hore waa kii u yimid deedna waxa horanay nin aan aad u raadinayay oo agtaada ka sii baxaya ayaan arkay boqorow ashraafta inay qayb kamidana waa u dilay dagaalkii Badr buu ku jiray Camr Umayyah marka waxaan arkaa buu yiri wallahi niyo hadaad isii lahayd ninkan maadaama saaxiibana ugu sharfilaad waan dili lahaa
lahaa quraysh agteedana waan ku weynaan lahaa hadda waxay leeyahay camr ibn caas waa uu cararay oo dagaalka maxamed buu ka daalay laakiin ninka haddaan dilo quraysh waxay oranaysaa warniyo ninka camr ibn caas waa balaayo meel kastoo taga ninka saxaab maxamed waa ku ugaarsanaya aniyo maad isnajaashiyo ninka asaga maad isiis camr ibn caas baa sheekada ka sheekeynaya waxa uu yiri markii aan inta iri ayaa mar qura ninka najaashi waa xanaaqay deedna sankiisa ayuu bahar dharbaaxa ku jiiday ilaa aan mooday inuu sankiisa jabiyaba deedna wuxuu yiri ma waxaad weydiinaysaa inaan ku siiyo rasuul uu soo dirsaday nin uu imanayo kii uu iman jiray Muusa waxaad weydiisanaysaa inaan ku siiyo fariin sida ka socda nin uu imanayo kii uu iman jiray Muusa ma garanaysaa midkii Muusa uu iman jiray rasuushu idin uu iman jiray waa malakul jibriil buu ka wadaa oo malagi waxiga keenaya ah marka wuxuu yiri ma waxaan doonaysaa inaan ku siiyo fariin sida ka socda nin uu imanayo kii nabiyullaahi Muusa uu iman jiray war maxaa ka qaldan markaas amr caas waagi baa ku bariyay wuxuu yiri wallahi boqor haddaan ogahay inaad xanaaqayso ma ku weydiiyeen baniyo ninka aad sheegaysaa ma sidaasa markaas uu war taladayda yeer ninka asaga raaco rumay wallahi waa nabi waana guuleysanaya sidii nabiyullaahi Muusa fircoon iyo kuwii la socday uga guuleystay quraysh iyo wax kasto la colaytantaba uga guuleysanaya hadda intii goor tahay ninka asaga raac deedna markaas waxaan yiri wallahi waan raacay hadda sidaa tahay deedna beeca iga qaad baan ku yiri asagi beeco iga qaado wari gacantiisa ayaana ku islaamay kadibna waan iska soo dhaqaaqay wari saaxiibadii waan u tagay waan soo dhaqaaqay waxaana soo aaday wari Madiino maraan meel Makay Madiino u dhaxaysa aan marayo ayaa waxaan la kulmay wari laba nin oo aan garanayo Quraysh Khalid ibn Walid iyo Uthman ibn Talha ayaan jidka ku wada kulanay waan ismarxabeynay Khalid baa wuxuu ugu yiri war Amr caas xagee u socotaa soo adiga halka iyo najaashi u cararay kaas maxaa ku yiri adigu iga jawaab horta xagee u socotaa kaas uu yiri anigu waxaan u socdaa Madiina u socdaa ninkani waa nabi waan islaamaya markaasaan annaka u yiri wallahi wax kalaba tuubi igama keenin arinta unba ay keentay waan islaamaya anigu dadna waa soo raaceen halka ayaan ay ku islaameen oo magaalada Madiina ayaa ay soo galeen nabiguna aad buu ugu farxay markii uu arkay Uthman ibn Talha Khalid ibn Walid iyo Amr ibn Caas muslimiintu waa ay soo dhaweeyeen halka ayuu ku islaamay Amr ibn Caas radiyallahu anhu dadna Amr ibn Caas markuu islaamay wax yar kadib dhowr bilood kadib nabigu sallallahu alayhi wasallam hogaam ayuu u dhiibay qaswada la yiraahdo qaswatu dhaat as-salaasil ayaa nabigu sallallahu alayhi wasallam u dhiibay Amr ibn Caas ciida ayuu hogaamiyay uga dhigay hadoow in dhowr bilood shan bilood waxaan dhameyn ayaa uu muslim yahay ninkani laakiin nabigu sallallahu alayhi wasallam wuu garanaya muhiibada ku jirta aqliga iyo maskaxda ku jirta Amr ibn Caas sida daraadeed ciidan dhan oo saxaabadii qudaamada ah ay ku jiraan ayaa wax laga dhigay amiir nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri soco qabaa'ilkaas carbeed soo idbi ayaa la yiri duulanka ayaana madax laga dhigay markii uu soo baxay qabaa'ilkii loo diray wuxuu arkay ciidan aad u fara badan oo haysto oo ciidankooda aad u tiro badan yahay dadna rasuulkii ayaa wuxuu fariin ku celiyay isagoo oranaya gurmad baan ka rabaa dadna 200 oo saxaaba oo Abu Bakar iyo Umar iyo ku jiraan oo Abu Ubayda madax laga dhigay ayaa loo diray ninkii leeyahay Amr ibn Caas nabiguna Abu Ubayda markuu baxay wuxuu ku yiri saaxiibka hadii aad u tagto is-ateeca hana iskhilaafina Abu Ubayda waa uu yimid Amr ibn Caas ayaana u yimid dadna Abu Ubayda waa la garanayaa wuxuu ku jira dadka ugu horeeyay shantii qof ugu horeeyay islaamta ayuu ku jira Amr ibn Caasna xiyaro bilayro kooban ayaa uu muslimiin halka markii la isugu tagay salaadii xilliga salaada ayaa la gaaray Amr ibn Caas ayaaba wuxuu rabaa inuu dajiyo dad muslimiinta Abu Bakar iyo Umar waa la isfiirfiiriyay waxa la yiri war Abu Ubayda joogo amiiraha wiiliyo hadda soo islaamtay safgal laakiin Amr ibn Caas hogaan uu dhiibay nabiga sallallahu alayhi wasallam waa uu diiday inuu dayaco wuxuu yiri aniga ayaa madaxa ciidankan ana rasuulku ii soo dhiibay anaana madax ka ah adinkana gurmad baan dalbaday gurmadkayga ayaa tiin adinka ayaana la ii soo keen diray gurmadna ciidanku kamid yahay Abu Ubayda marka waxa uu xusiistay hadalkii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku yiri is-ateeca hana iskhilaafina hadaba daawadayaal Abu Ubayda hadalkii rasuulka ayaa uu xusiistay deedna waxa uu ateecay Amr ibn Caas ciidanka ayuu kamid noqday Amr ibn Caas ayaana dadka salaada ka bixiyay cadawga ay la dagaalameen deedna way jabiyeen muslimiintu markii ay jabiyeenna Amr ibn Caas ciidankii muslimiinta ayaa waxa ay damceen in cadawgii jabay ay bursadaan deedna Amr Caas waa ku celiyay wuxuu yiri ma raacdeen kartaan maadaama ay jabeen waad ka hareysaan muslimiinta ayaa Abu Bakar iyo Umar ayaa fiiriyay Umar baa ku xanaaqo yiri war muxuu leeyahay qofkan ciidanka cadawgu waa jabay man bursano muxuu noogu diidiyay man raacdaysan muxuu u diidayay Abu Bakar ayaa ku yiri rasuulka Allah ayaa madax ka dhigay asagoo garanayo marka wiliyo istaji xaweye aqliyada ku jirta darteed rasuulka ayaa madax ka dhigay soo adiga iyo aniga baan arkayay niyahow ateec amirkaaga ayaa lagu yiri Umar ibn Khattab Abu Bakar ayaa ku oranay Umar waxa ka reebay muslimiinta inay bursadaan cadawgooda teedna wax la socdaba hadana adigu habeenada kamida jawi waxa la galay cimilo qabow baa la galay qabow aad u daran ayaa xilli habeena soo dhacay teedna saxaabadu waxa ay damceen inay dab shitaan si dabka ay u kulaalaan oo ay isugu kuleeliyaan Amr ibn Caasna waa uu diiday wuxuu yiri qof dab shidi kartaa ma ay jirto war waan dhamaanayna wad dhamaan kartaan buu yiri cid dab shidi kartaa ma jirto waa uu diiday in dab la shido muslimiintu way hoggaansameen waa saxaabo waxba kale lama samayn karayo afkiiba juuqda gabay waa la aamusay Amr ibn Caas qabowgaas asoo jira habeenkii markii la jeeftay waa uu janaabooday janaabo ayaa ku dhacday amiirkii ciidanka waxa ku dhacday janaabo deedna salaadii subax ayaa la gaaray Amr ibn Caasna waa uu galgashay oo dhulka ayuu isku gidgidiyay deedna salaadii ayaa ka bixiyay muslimiinta saxaabadii markii la soo laabtay oo magaalada Madiina lagu soo laabtay rasuulka loo yimiday muslimiinta ayaa u wareystay nabiga sallallahu alayhi wasallam yiri bal ka warrama amiirkiini ilaa waa markii uu horeysay oo ciidan muslimiina loo dhiibo markii uu soo islaamay kadib hadaba wadayaal saxaabadii dhamaan way amaaneen waxaana ay u sheegeen waxaabay uu sameeyay inuu cadawgii markii uu jabay uu lama bursan karo lama ceerin karo waxa kale u sheegeen in uu salaada ka bixiyay isaga oo janaabo qaba yani rasuulka aad buu ula yaabay waana u yeeray amiirkii Amr ibn Caas waxaana uu ku yiri waraya Amr ibn Caas maxaad ugu diiday ciidanka
ciidanka inay raacdeystaan cadowga marka uu jabo dadna wuxuu rasuulka Allah waxaan arkay buu ciidankeenu inay ay yar yihiin ayaguna aad bay u badnaayeen marka waxaan ka baqay markii aynu raacdeysano in kamiin iyo waxaan ku dhacno sida ayaan ugu diiday haye waxa la waayahay maxaad qabowgu markuu yimidna aad ugu diiday muxuu ahaa in dab la shid dadka maxaad qabowgu ugu laynaysaa dadna wuxuu rasuulka Allah waan yarnahay dabka hadii la shidana tiradeena ayay arkayaan jawaasiista cadowgii aan u soconay dadna waxaan ka baqay in tiradeena la qiyaaso sidaana lagu soo dhiirido waan garanay si saddexaad baa la weydiiyay saxaabada maxaa dhacay salaadii baad dadka bixisay baa leeyahay adoo janaabo qabo wuxuu rasuulka Allah qabow daran baa dhacayay xaalad adag baa jirtay hadaan qubaysan lahaana waan dhiman lahaa soo ilaahay ma oran buu yiri wala taqtulu anfusakum naftina halaaginu hadilina soo ilaahay ma dhihin sidaas darteed anigu naftaydiina waan dhiman lahaa hadaan qubaysan lahaa waan dhiman lahaa sida daraadeed baan u gabagabaystay salaadan sidaa baan uga bixiyay rasuulka Allah mana qubaysan karin soo ilaahay ma oran wala taqtulu anfusakum kidu nabiga sallallahu alayhi wasallam qosl ayuu la dhacay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa aad u qoslay waxana lagu yiri amirkiin waa saxan yahay hadaba daawadayaal Amr ibn Aas ninka weyn ayaa uu ahaa wixii xilliga ka dambeeyay waxa uu noqday seef muslimiintu ay leeyihiin oo galka ka baxsan gaaladana saaran Amr ibn Aas waxa xusiisataa inuu yahay mid kamid ah hogaamiyaashii dhulkan loo yaqaan Sham dhulkan ballaaran ee Sham loo yaqaano muslimiintii furantay ayuu ku jira Suuriya Dimashq caasimadeedu ay tahay Urdun Falastiin dhulkaas hogaamiyaashii furtay muslimiinta ayaa uu qayb kamid yahay bal Amr ibn Aas wuxuu kamid yahay hogaamiyaasha ka qayb galay dagaalkii weynaa ee Yarmouk ee afka ciidan loogu daray ciidankii Yurubiyan ee dawladii Byzantine Roomiyiin waxa la oran karaa dagaalkii lagu soo gabagabeeyay ayaga oo idil awoodoodii lagu baabiyay hogaamiyaasha ka qayb galay ayaa uu kamid ah Amr ibn Aas Baytul Maqdis ragii furtay ayaa uu ku jira Amr ibn Aas si lamid ah wadanka la yiraahdo Masar Amr ibn Aas ayaa furtay ilaa maantana waxa ka dhisan masjidka Amr ibn Aas oo aad garanaysaan masjidka Masar ugu weyn ah hadaba daawadayaal saxaabigaasi wuxuu ahaa saxaabi qaaliya oo xilliga Umar ibn Khattab iyo xilliga Abu Bakr iyo xilliga Uthman ibn Affan ila xilliga Muawiya waxa uu ahaa hogaamiye oo amiir ah wakiina Umar ibn Khattab yiri uma haboono Amr ibn Aas inuu dhulka korkiisa ku socdo ilaa inuu amiir yahay mooyaan saxaabigaasi wuxuu ahaa saxaabi qaaliya oo miisaankiisu oo culus yahay waana aabaha dhalay saxaabiga caanka aad garanaysaan la yiraahdo Abdullah ibn Amr al-Abadil al-Arba'a Abdullah afarta mid kamid ah ayaa uu aabo u yahay Amr ibn Aas hadaba taariikhdiisu aad bay u dheertay Amr ibn Aas laakiin intan ayaan ku soo gaafsanayaa hadii aad muuqaalka ilaa intan taawatay aad baan kugu mahad celinayaa channelka taageer subscribe sar saaxiibka la wadaag aad baad u mahadsan tahay la soco muuqaalka xiga assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh